tahay aqoon darradu? Waxaa jira dad aad inoogu waafaqsan waxa aan ka sheekeynayno oo ah in ruux hadaf yeesho, laakiin dhibka haysta ay tahay iyaga oo aan lahayn aqoon taas oo u suuragelin lahayd xaqiijinta hadafkooda. iyaguna nasiib daro uma dhaqaaqan sidii ay u heli lahaayeen aqoontaas. waxa lala yaaba ah ruux doonaya inuu wax helo haddana aan ku habsanaynin aqoontii gaarsiin lahayd shayga uu doonayo. mid ka mid ah saaxiibada ayaa ii sheegay in himiladiisu ay tahay inuu noqdo jilaa aad loo jecel yahay, laakiin weligay ma arag isaga oo xaadiraya siminaarka lagu barto jilaannimada amase isaga oo akhrinaya buugta ka hadlaysa jilaannimada. wax tallaabo ah ma qaadayo. sidaa awgeed himiladiisu waxay iska noqonaysaa yididiilo keliya. markii aan weydiiyey maxaad u qaadi weyday tallaabooyin si aad hadafka u xaqiijiso, wuxuu iigu jawaabay garan maayo meel aan ka bilaabo iyo si aan u bilaabo. haddii uu ruux isku dayi waayo inuu barto sida uu u dejisanayo hadaf cad oo noloshiisa ah oo uu xaqiijinayo hadafkiisana waqti cad u yeeli waayo, wuxuu ahaanayaa mid maxbuus ah. sida saaxiibkeen u doonayo inuu noqdo jilaa, haddana jawaabtiisu noqotay garan maayo meel aan ka bilaabo iyo sidii loo bilaabo. wuxuu leeyahay xikmad badinihii caanka ahaa Sagilar, waa laga yaabaa in cid kale mararka qaarkooda kuu diido inaad wax qabsato, laakiin adigaa inta badan naftaada u diiday inay wax qabsato. adiga keliya ayaa awood u leh inaad naftaada xor ka dhigto si ay u samayso waxa ay doonayso, ama adiga unbaa u diidi kara. maxay waajib inoogu tahay inaan yeelno hadaf? waxaan isweydiinaynaa su'aal muhiim ah: sidee baan u dejisanaa hadaf nololeedkeena iyo qorshe fiican oo aan ku xaqiijino hadafkaas? kaalay marka hore aan isla xiriirno. maxaan horta hadaf u dejisanaynaa? ahamiyadda hadafka si aan nafteena u xakamayno. markii ruux leeyahay barnaamij dhammaystiran oo nidaamsan oo miisaaman si uu hadafkiisu u xaqiijiyo, wuxuu dareemayaa in noloshiisu maamuli karayo, wuxuuna yeelanayaa awood uu ku bilaabayo shay walba oo qorshaysan noloshiisa. awoodda uu leeyahay ruuxa qorsheeya noloshiisa waa mid aad u weyn, waxayna kaa caawinaysaa inuu ku gudbo caqabad fara badan.